dalisha Soomaaliland ugu weyn ee dhaqaalaheena iyo nabadgelyada oo dhibtay waxa weeye isku dhaca deegaamaysan ee beelaha wadaga deegaamada dhulkeenu way naga badan yahay dadkeenu wuu yahay dhulkeenu wuu yahay haddana waxa dhacda maalin walba beela isugu dhaca dhul isku qabsado oo ah beer iyo barkad iyo wax la mid waxa naga dhintay boqolaal qof loo sano dambeeyay waxa ku burburay hanti badan dad badan baa ku barakacay hadaa dagaalada raadiso oo si walba oo xadhood baadhana waxaan sagaar ka biirsan baan ku ee dadka ku leeyahay oo dadka ku barakacay oo dhaqaaleena ku burburin waxyaalaha dhaqaaleena culayska badan ku hayaan waxa kamid ah isku dhaca beeraha iyo hawlgaladooda labadii sanadood u dambeeyay waxa la yaab leh inaga oo dal soo koraya oo horumar doonayo waxa inaga baxay dagaal beelada loo gurmanayo ee kolba barkad iyo beer iyo waxaan ka weyn la isku dilaayo 9 milyan oo dollar 9 milyan oo dollar baa inaga baxay dhexdhexaadin iyo u gurmad iyo kala qabashada beeraha laba sano u dambeeyay imse iskuul baynu dhisahay caafimaad baynu u baahan biyaynu u baahan wax alliyo waxa la isku dilayna garamis markuu dadku la laayo ee la barakaco ee la burburaa la oranaya walaalayaal ka heshiin oo xal dhalaa ka noqon maxay isku dilay maxay waxaan soo jeedinayaa dhammaan wax garadka media mutacallimiin sheekh shariif in dadka laga waanay dhulku waa ina deeqaayay inaan maalin walba ku dhamaan oo inaan isku gurman waxaan sagaar ka birsan gacan baa la isku dilay barkada u leeyahay